بسم الله الرحمن الرحيم ساقا waxaan joognay maxkamadda gobolka waxa ahayd maalintii u dambeysay ee lagu dhawaaqay xukunka ninka la yiraahdo saxafiga Coldoon oo aan ka soo qayb galay aniga sidii la ii xiray ee aad ii weydeen ee aan dib ii arag oo saaka media iga horeysa waxaan qabaa laba xukun ayaa ninkaasi la isku hoos galiyay mid ay dawladdu gaar u wadatay oo iyadu doonaysay iyo mid iskuul lagu magacaabay iskuulkaasina ay diideen saan xogta ku hayo inaanay ninka wax dacwad ah haysan waxa lagu xukumay 3 sano iyo 6 bilood waxaan u arkaa xarigaasi cadaalad darro xaq darro in Cabdiraxmaan Abees la sii daayo cadaaladdu kuma jirtay dalku wuxuu u baahan yahay cadaalad baahsan oo cid walba ay heshay haddii ay isleedihiin Cabdiraxmaan waa la sii daayay Coldoonna waa la xiray aniga niyo waa la sii daystay leeyma sii daynin waxa la sii daystay boorma la igu dilo oo ujeedo gaar ah oo siyaasiyan laga sameeyo taas waa taa Coldoonna insha Allah waxaan u baryaynaa in cadaaladiisa uu soo celiyo looyaradiisuna ay u doodaan raaxsaanna oo helo taas waa taa kale aan ku darayaa waxa weeyaan arrinka ceel afweyn ka dhacay ee dadka walaalaha ah ee isdilay aanu doonayno inaan baroodiiq ugu dirno iyagana aanu leenahay war Ilaahay ka yaaba cidda waxaan abaabulaysa ee ka dambaysa cidda doonta ha ahaateena Ilaahay umada dad ka qabto arintaas ka bax Cabdiraxmaan adigu waxa lagu dhaxarkay shirki kulmiyaad oo dhex jooga iyadoo dadkii ku dooday ee ku dagaalamay inta badan oo meediyuhuna kamid ahaa ay ku hadleen mar qolo waxa lagu baraarugado dhex fadhiya oo dhex taagan shirki kulmiye sidee lagu dilay adaaba shirki qayb ka ahaa walaal waxa weeyaan sida la yidiin sheegaya waxa weeyaan shirka anigu umaan tagin inaan shir tago ee madaxweynaha qaranka u tagaysaa baa la igu yiri laakiin meesha waxa ka jirtay khiyaamo kale miyaan madaxtooye jirin oo meel kale lagu kulma jirin maxaa adiga shirka ku geeyay boorag walaal waxa weeyaan madaxweynaha hadduu ku yeero muhiimadu maaha halka aad ku aragtay waa inaad madaxweynaha ugu tagtaa halka uu kugu yeerade anigu waxaan aaminsanahay walaal in sii deynteedu sharci ahayd waxaan aaminsanahay inaan qof dulmi galay aan ahaa sida dulmi lagu sameeyay sida Cabdimaalik u dhibanaa ayuuman aniguna u dhibanaa laakiin in la sii daayo iyo in la soo xidho midna deemaan